Sidee wiil yar oo ku soo koray tuulada saboolka ah ee Bambali uga noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu waaweyn kubadda cagta adduunka? Tani ma aha oo kaliya sheeko kubadda cagta ku saabsan, balse waa sheeko ka hadlaysa samir, halgan, iyo riyo rumowday. Maanta waxaan dib u milicsan doonaa safarkii cajiibka ahaa ee Sadio Mane, laga soo bilaabo waddooyinkii ciidda lahaa ee Senegal ilaa garoomadii ugu waaweynaa ee Yurub. Ha moogaan, waayo sheekadan waxay xambaarsan tahay casharro dhiirrigelin u noqon kara qof kasta oo riyo weyn leh. Hase yeeshee, is-xasuusin, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, channel-kana subscribe dhahdo. Mahadsanid. Aan u sii gudagalno muuqaalkeena. Bilowgii noloshiisa iyo deegaankii uu ku soo barbaaray. Sadio Mane wuxuu dhashay 10kii Abriil 1992, wuxuuna ku dhashay tuulo yar oo la yiraahdo Bambali oo ku taala koonfurta dalka Senegal. Bambali waxay ahayd tuulo ay ka jireen duruufo nololeed oo adag, halkaas oo adeegyada aasaasiga ah iyo fursadaha horumarku ay aad u koobnaayeen. Mane wuxuu ku soo barbaaray qoys ballaaran oo wada degnaa hal guri, isaga oo la noolaa waalidkiis, gaar ahaan hooyadiis, aabihiis, adeeradiis, habaryaradiis iyo ilma-adeeradiis. Inkastoo qoysku ay la daalaa dhacayeen saboolnimo, haddana waxay ku barbaariyeen edeb, samir iyo dadaal. Noloshii adkayd ee uu ku soo koray ayaa qalbigiisa ku abuurtay rajo weyn iyo himilo ah inuu maalin uun ka baxo duruufahaas, isla markaana beddelo nolosha qoyskiisa iyo tan dadka ku nool tuuladiisa. Riyadaas iyo go'aankiisa adag ayaa noqday tiirarkii uu ku dhisay guushii kubadda cagta, taasoo markii dambe ka dhigtay mid ka mid ah xiddigaha ugu waaweyn ee Afrika soo saarta. Geeridii aabihiis iyo saameyntii ay ku reebtay. Sadio Mane wuxuu jiray 7 sano oo kaliya markii uu la kulmay dhacdadii ugu murugada badnayd ee carruurnimadiisa. Aabihii, oo ahaa imaamkii tuulada Bambali, ayaa geeriyooday kadib xanuun muddo hayay. Xilligaas, tuulada Bambali ma lahayn isbitaal ama adeeg caafimaad oo ku filan, taasoo adkaysay in aabihii uu helo daryeel caafimaad oo degdeg ah. Geeridaasi waxay noqotay dhaawac qalbi oo weyn, waxayna si qoto dheer u saameysay nolosha iyo fikirka Sadio Mane. Geerida aabihiis kadib, adeerkiis ayaa la wareegay mas'uuliyadda korintiisa, halka hooyadiis ay noqotay tiirka ugu weyn ee dhiirrigelinta iyo garab istaagga qoyska. Duruufahaas adag ayaa Mane baray dulqaad, adkaysi, iyo in guusha lagu gaaro dadaal joogto ah. Sadio Mane murugada uu soo maray carruurnimadiisa kama aysan niyad jabin, taas beddelkeed waxay u noqotay dhiirrigelin uu ku go'aansaday inuu beddelo nolosha qoyskiisa iyo tan dadka ku nool tuuladii uu ku soo barbaaray. Safarkaas adag ayaana ugu dambeyn ka dhigay mid ka mid ah halyeeyada ugu waaweyn kubadda cagta Afrika. Qoyskiisa iyo diidmadii kubadda cagta. Qoyska Sadio Mane, gaar ahaan adeerkiis iyo hooyadiis, waxay ahaayeen dad aad u diini ah oo aaminsan in waxbarashada rasmiga ah iyo barashada diinta Islaamku ay yihiin tubta kaliya ee guusha lagu gaari karo. Maadaama uu aabihiis ahaa imaamka tuulada, qoysku waxay doonayeen in Sadio uu raaco jidka aabihiis ama uu noqdo macallin dugsi, iyagoo u arkayay kubadda cagta mid waqti lumis ah oo aan mustaqbal lahayn. Markasta oo uu Mane sheego inuu doonayo inuu noqdo ciyaaryahan xirfadle ah, qoyskiisu waxa uu kala kulmi jiray caro iyo diidmo qayaxan, iyagoo isku dayi jiray inay ka weeciyaan hamigaas, balse diidmadoodu waxay sii xoojisay rabitaankiisa ah inuu caddeeyo inuu ku guuleysan karo ciyaarta kubadda cagta. Bilowgii kubadda cagta ee waddooyinka Bambali. Maadaama tuulada Bambali aysan lahayn garoomo casri ah ama akadeemiyo kubadda cagta lagu barto, Sadio Mane wuxuu hibadiisa ku kobciyay waddooyinka ciidda iyo dhagxaanta leh ee tuuladiisa. Isaga iyo saaxiibadiis ma haysan kubbado rasmi ah, halkii ay ka heli lahaayeen qalab ciyaareed. Waxay gacmahooda ku samaysan jireen kubbado ka samaysan marooyin duug ah, baco, iyo agab kale oo ay heli kareen.
taasi kama aysan hor istaagin inay ku raaxaystaan ciyaarta ay jeclaayeen. Carruurnimadiisii, Mane wuxuu si weyn uga dhex muuqday carruurta kale. Wuxuu caan ku ahaa xawaare sare, xirfad cajiib ah, iyo kubadhayn soo jiidatay indhaha dadka deegaanka. Maalin kasta marka uu dhammeeyo caawinta qoyskiisa, wuxuu saacado badan ku qaadan jiray waddooyinka Bambali isagoo ku ciyaaraya ciidda kulul. Mararka qaarna wuxuu ciyaari jiray isagoo aan xiran kabo. Waddooyinkaas qardajeexa ah ee Bambali ayaa noqday garoonkii ugu horreeyay ee uu ku dhisay hibadiisa. Halkaas ayay ka bilaabatay safarka wiilkii yaraa ee markii dambe dunida oo dhan ka yaabsaday, kana mid noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu waaweyn kubadda cagta Afrika. Finaalkii taariikhiga ahaa ee Champions League 2005, mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee beddelay aragtida Sadio Mane ee kubadda cagta wuxuu ahaa finaalkii taariikhiga ahaa ee Champions League sanadkii 2005, kaasoo dhex maray Liverpool iyo AC Milan. Xilligaas Mane wuxuu jiray 13 sano oo kaliya. Wuxuu ciyaartaas ka daawaday guri uu lahaa mid ka mid ah saaxiibadiis, halkaas oo dad badan oo tuulada Bambali ka tirsan ay isugu yimaadeen si ay uga daawadaan shaashad yar. Markii uu arkay Liverpool oo ka soo laabatay 3 gool oo looga hormaray kuna guuleysatay koobka, qalbigiisa waxaa ku dhashay dhiirigelin iyo rajo aan caadi ahayn. Habeenkaas Sadio Mane wuxuu saaxiibadiis u sheegay hadal ay la yaabeen. Wuxuu yidhi, "Maalin ayaan u ciyaari doonaa koox weyn oo Yurub ah, gaar ahaan kooxda Liverpool." Dad badan ayaa u arkayay hadalkaas inuu yahay riyo aad uga fog xaqiiqada, laakiin Mane ma uusan joojin rumaysadka riyadiisa. Wuxuu aaminsanaa in dadaal, dulqaad iyo go'aan adag ay u horseedi doonaan halka uu hiigsanayo. Habeenkaas ayaa noqday bilowgii riyo weyn oo markii dambe dhab noqotay, isagoo xirtay funaanadda Liverpool, isla markaana noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu saameynta badnaa taariikhda kooxda. Carruurnimadii adkeyd iyo mas'uuliyaddii qoyska. Intii uu ku jiray carruurnimadiisa, kubadda cagta ma ahayn waxa kaliya ee uu Sadio Mane ku mashquulsanaa. Qoyskiisu waxay ku tiirsanaayeen wax soo saarka beeraha si ay u helaan nolol maalmeedkooda, taas oo ka dhigtay in Sadio Mane qayb ka noqdo howlaha qoyska. Subax kasta wuxuu aadi jiray beerta adeerkiis si uu uga caawiyo shaqooyinka kala duwan sida beerista dalagyada, qodista dhulka, iyo ururinta wax soo saarka soo go'a. Shaqadaasi waxay ahayd mid culus oo u baahan dadaal badan, balse waxay si tartiib ah u dhistay jirkiisa iyo adkaysigiisa. Daalka iyo duruufaha adag ee uu soo maray ayaa markii dambe ka caawiyay inuu noqdo ciyaaryahan leh awood jireed iyo dulqaad aan caadi ahayn. Inkasta oo uu beerta ka shaqaynayay, haddana maankiisu wuxuu had iyo jeer ku maqnaa goorta uu shaqada dhammayn doono si uu u gaaro garoonkii uu ku ciyaari jiray kubadda. Halkaas oo uu kasii daba socday riyadiisii ahayd inuu noqdo ciyaaryahan weyn. Go'aankii geesinimada lahaa ee uu kaga baxsaday gurigooda markii uu gaaray da'da 16 jirka, Sadio Mane wuxuu ogaaday in haddii uu sii joogo tuulada Bambali uusan marnaba gaari doonin riyadiisa ah inuu noqdo ciyaaryahan weyn. Sidaas darteed wuxuu qorsheeyay inuu si dhuumaaleysi ah uga baxsado guriga isagoon qofna u sheegin. Wuxuuna caawimaad ka helay saaxiibkiisii ugu dhawaa ee carruurnimada. Aroor hore ayuu Sadio Mane soo kacay isagoo go'aan adag qalbiga ku haya. Wuxuu qaatay boorsadiisii yareed, kadibna wuxuu ku qariyay geed weyn oo ku yaalay bannaanka tuulada si uusan qofna uga hor istaagin safarkiisa. Kadib wuxuu raacay bas u socday magaalada caasimadda ah ee Dakar, halkaas oo uu rajeynayay inuu ka raadiyo fursad uu ku horumariyo xirfadiisa kubadda cagta. Safarkiisu ma ahayn mid sahlan. Wuxuu maray masaafo aad u dheer oo 100 kiiloomitir ah isagoo aan haysan lacag ku filan, meel uu dego ama cid uu ku tiirsanaado. Laakiin hal shay ayuu watay: rajo iyo go'aan adag. Mane wuxuu rumaysnaa in riyadiisa kubadda cagta ay mudan tahay inuu u halgamo, waxaana qalbigiisa ku jiray go'aan ah
inuusan dib uga laaban jidka uu doortay noloshii adkeyd ee caasimadda Dakar. Markii uu Sadio Mane soo gaaray magaalada Dakar, wuxuu galay adduun gabi ahaanba ka duwan kii uu ku soo barbaaray ee tuulada Bambali. Wax walba waxay ahaayeen kuwo cusub, mana uusan aqoon cid uu ku tiirsanaado. Si kastaba ha ahaatee, nasiibkiisu wuu wanaagsanaa. Wuxuu la xiriiray qoys deganaa Dakar oo ay is yaqaaneen dad ka soo jeeday tuuladiisa. Inkastoo qoyskaasi haysan nolol barwaaqo ah, haddana si niyad wanaagsan ayay u soo dhaweeyeen, waxayna siiyeen hooy uu ku nasto. Maalin kasta, Sadio Mane wuxuu ka bixi jiray guriga isagoo raadinaya fursad uu ku muujiyo hibadiisa kubadda cagta. Wuxuu albaab kasta u garaaci jiray rajo ah in maalin uun la siiyo fursad uu ku caddeeyo kartidiisa. Maalmihiisii ugu horreeyay ee Dakar ma ahayn kuwo sahlan. Wuxuu la kulmay walbahaar, hubanti la'aan iyo tartan adag, balse ma uusan lumin rajadiisa. Wuxuu rumaysnaa in dulqaadka, dadaalka iyo go'aanka adag ay ugu dambeyn u horseedi doonaan guusha uu ku haminayay. Maalintii tijaabada ee Akadeemiyadda Generation Food, maalintii ugu muhiimsaneyd ee bilowgii xirfadda Sadio Mane, waxay ahayd maalintii uu ka qayb galay tijaabadii lagu soo xulinayay ciyaartoyda da'da yar ee dooneysay inay ku biiraan Akadeemiyadda Generation Food ee magaalada Dakar. Markii uu garoonka soo galay, dad badan iyo qaar ka mid ah tababarayaashii goobta joogay waxay si hoose u eegeen muuqaalkiisa. Wuxuu xirnaa surwaal gaaban oo aan ahayn kii kubadda cagta iyo kabo duug ah oo go'ay oo uu ku xiray xargo si aysan cagihiisa uga bixin xilliga ciyaarta. Mid ka mid ah tababarayaashii ayaa si yaab leh u weydiiyay, "Ma kabahan ayaad ku ciyaaraysaa?" Sadio Mane wuxuu ugu jawaabay si kalsooni leh, "Haa, fursad kaliya i sii inaan garoonka isku muujiyo." Jawaabtaas kooban waxay muujisay geesinimadiisa iyo kalsoonida uu ku qabay hibadiisa. Inkastoo muuqaalkiisa dibadda aan lagu qiyaasi karin, haddana qalbigiisa waxaa ka buuxay rajo, dadaal iyo rumaysad ah in hibadiisu ay ka hadli doonto wax kasta oo uu xiran yahay. Wax yar kadib markii ciyaartu bilaabatay, Mane wuxuu cagihiisa ku caddeeyay in hibada dhabta ahi aysan ku xirnayn dharka ama kabaha, balse ay ku jirto kartida, dadaalka iyo go'aanka qofka. Mucjisadii garoonka iyo soo jiidashadii tababare Jules Boucher. Sida uu sheegay tababare Jules Boucher oo ahaa ninkii maamulayay tijaabada, Mane wuxuu u baahday dhowr daqiiqo oo kaliya si uu u muujiyo inuu yahay ciyaaryahan ka duwan dhalinyarada kale oo dhan. Markii kubadda la siiyay, wuxuu soo bandhigay xawaare cajiib ah, farsamo sare iyo go'aan qaadasho degdeg ah oo ka yaabisay dhammaan dadkii daawanayay. Tababaraha ayaa durbadiiba amar ku bixiyay in la qoro magaciisa oo aan la ogolaan inuu aado koox kale. Go'aankaas ayaa noqday isbeddelkii ugu weynaa ee nolosha Sadio Mane. Wuxuu u furay albaabkii ugu horreeyay ee xirfadiisa kubadda cagta, isagoo si rasmi ah uga mid noqday Akadeemiyadda Generation Food. Maalintaas waxay ahayd maalintii riyadiisii carruurnimo ay bilowday inay isu beddesho xaqiiqo. Wargelintii qoyska iyo taageeradii riyadiisa kadib markii si rasmi ah loogu biiriyay Akadeemiyadda Generation Food, dadkii gacanta ku hayay Sadio Mane ee magaalada Dakar waxay la xiriireen qoyskiisii ku noolaa tuulada Bambali, kuwaas oo muddo dheer ka walwalsanaa halka uu ku sugan yahay wiilkooda. Markii hore, qoysku waxay doonayeen inuu si degdeg ah ugu soo laabto tuulada, waayo waxay ka baqayeen inuu ku dhibaatoodo magaalada weyn ama uu waayo jidkii saxda ahaa. Laakiin markii loo sheegay in Sadio uu helay fursad qaali ah oo uu kaga mid noqday akadeemiyad caan ah oo soo saarta ciyaartoy xirfadlayaal ah, fikirkii qoysku si buuxda ayuu isu beddelay. Adeerkiis iyo hooyadiis waxay garwaaqsadeen in wiilkoodu leeyahay hibo gaar ah oo mudan in la taageero. Halkii ay ka hor istaagi lahaayeen, waxay ugu duceeyeen inuu guuleysto, una rajeeyeen mustaqbal ifaya. Taageeradaas iyo ducada qoyskiisa waxay Sadio Mane ka qaaday culays weyn oo maskaxdiisa saarnaa, waxayna siisay deganaansho iyo kalsooni uu si buuxda diiradda ugu saaro tababarka
iyo xaqiijinta riyadiisii uu sanado badan ku taamayay noloshii adkayd ee akadeemiyadda dhexdeeda. Inkastoo Sadio Mane uu ku biiray akadeemiyadda Generation Food, haddana nolosha halkaas ka jirtay ma ahayn mid sahlan. Ma jirin raaxo iyo nolol fudud sidii laga filan lahaa akadeemiyadaha waaweyn ee Yurub. Ciyaartoyda da'da yar waxay ku tababaran jireen kuleylka daran ee Senegal, iyagoo dhowr qof ku wada noolaa qolal yaryar oo ay ka maqnaayeen adeegyo badan oo muhiim ah. Cuntada ay heli jireenna waxay ahayd mid xaddidan oo loogu talagalay inay siiso tamarta ugu yar oo ay uga baahnaayeen tababarka. Mararka qaar, Mane wuxuu la kulmi jiray gaajo, daal iyo duruufo adag. Si kastaba ha ahaatee, dhibaatooyinkaas ma aysan niyad jabin, waayo noloshiisii daruufaha adkayd ee uu ku soo qaatay tuulada Bambali ayaa bartay dulqaad, adkaysi iyo inuu la qabsado xaalad kasta. Mar kasta oo uu dareemo daal ama caqabado, wuxuu dib u xasuusan jiray riyadiisii weynayd iyo himiladiisii ahayd inuu noqdo ciyaaryahan heer caalami ah. Fikirkaas ayaana siin jiray dhiirigelin uu horay ugu sii socdo, isagoo aan weligiis ka quusan himiladiisa. Dhaawacyadii halista geliyay riyadiisa intii uu ku jiray akadeemiyadda dhalinyarada ee Dakar, Sadio Mane wuxuu la kulmay caqabado badan, waxaana ka mid ahaa dhaawacyo halis gelin karay riyadiisii kubadda cagta. Xilligaas, akadeemiyaddu ma haysan adeegyo caafimaad oo casri ah oo si degdeg ah loogu daweeyo dhaawacyada ciyaartoyda. Taas awgeed, mararka qaarkood Mane wuxuu sii wadan jiray tababarka iyo ciyaaraha isagoo xanuun dareemaya, si uusan u lumin fursaddii uu muddo dheer u soo halgamayay. Waxa ugu weyn ee uu ka baqayay ma ahayn xanuunka dhaawaca, balse wuxuu ka cabsanayay inuu waayo booskiisa kuna qasbanaado inuu dib ugu laabto noloshii adkayd ee tuulada Bambali. Laakiin Sadio Mane weligiis ma quusan. Dhaawac kasta wuxuu u arkayay imtixaan uu waajib ku yahay inuu ka gudbo. Dulqaadkiisa, geesinimadiisa iyo rabitaankiisa xooggan ayaa ka caawiyay in mar kasta dib u soo laabto isagoo kasii xoog badan sidii hore. Caqabadahaas ayaa dhisay shakhsiyaddiisa, waxayna u diyaariyeen safarkii uu markii dambe ku noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu waaweyn kubadda cagta Afrika. Imaanshihii indho-indheyaasha reer Yurub sanadkii 2011 waxaa timid fursaddii ugu weyneyd ee nolosha Sadio Mane. Indho-indheyaal ka socday kooxda Faransiiska ee Metz ayaa soo booqday akadeemiyadda Generation Food si ay u soo xushaan ciyaartoyda ugu hibada badan Senegal. Akadeemiyadda Generation Food iyo kooxda Metz waxay lahaayeen iskaashi dhow, waxaana sanad kasta la siin jiray ciyaartoyda ugu wanaagsan fursad ay uga mid noqdaan kooxaha Yurub. Intii lagu jiray kulankii tijaabada ahaa, Sadio Mane wuxuu soo bandhigay ciyaar cajiib ah. Xawaarihiisa, xirfadiisa iyo geesinimadiisa ayaa si weyn u soo jiidatay indhaha indho-indheyaasha reer Faransiis. Waxyar gudahood waxay garwaaqsadeen in wiilkaas da'da yar uu leeyahay hibo gaar ah oo u qalanta heerka Yurub. Shaki dambe ma jirin. Isla maalintaas ayaa la gaaray go'aankii beddelay noloshiisa. Sadio Mane waxaa loo xushay inuu u safro dalka Faransiiska si uu ugu biiro kooxda Metz, taas oo u furtay albaabkii ugu horreeyay ee kubadda cagta xirfadda ah ee Yurub. Riyadii ka soo bilaabatay waddooyinka ciidda leh ee Bambali ayaa ugu dambeyn gaartay qaaradda Yurub, halkaas oo uu ka bilaabay safarkii uu ku noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu waaweyn kubadda cagta Afrika. Sagootintii reer Senegal iyo bilowgii safarka Yurub, ugu dambeyn waxaa rumowday riyadii uu sanado badan qalbigiisa ku haysan jiray. Sadio Mane wuxuu helay fursaddii uu ugu safri lahaa qaaradda Yurub si uu u bilaabo wejigii ugu weynaa ee xirfadiisa kubadda cagta. Farxadda uu dareemayay waxaa la socotay cabsi iyo welwel, maadaama uu u socday dal iyo nolol gabi ahaanba ku cusub. Ka hor inta uusan ka duulin garoonka diyaaradaha ee Dakar, wuxuu taleefan u diray hooyadiis isagoo ku yiri, "Hooyo, waxaan u duulayaa Faransiiska si aan ugu ciyaaro kubadda cagta." Markii hore hooyadiis way la yaabtay, xitaa waxay u qaadatay hadalkaas inuu yahay kaftan, laakiin wax yar kadib ayay garwaaqsatay in riyadii wiilkeeda
ay dhab noqotay. Sadio Mane wuxuu fuulay isagoo 19 jir ah diyaaraddii u qaaday dalka Faransiiska isagoo wata boorso yar, qalbi ay ka buuxaan rajooyin waaweyn iyo riyo kasoo bilaabatay waddooyinkii ciidda lahaa ee tuulada Bambali. Safarkaasi ma ahayn oo keliya u guuritaan dal kale, balse wuxuu calaamad u ahaa dhammaadkii carruurnimada ay hareereeyeen caqabadaha, saboolnimada iyo bilowgii safarkii uu ku noqday mid ka mid ah halyeeyada ugu waaweyn kubadda cagta Afrika iyo dunida oo dhanba. Haddaba saaxiibayaal, waxaa inta inoogu eg muuqaalkeena. Intaan ku kulmi doonno muuqaalkan la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.